الله الكريم العظيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. شرف بكل غير نوع طهي إن المساجد كان قيمها له قرنتي وأكوي إماراتك هي تركيا إيوه aan isleeyahay qiimo aad u fara badan ayaa ku baxay inaynu maanta daafurkiisii u joogno. waxaan ilaahay uga baryayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay in ilaahay xasanaadka ugu kordhiyo. macno gaar uu ii samaynayaa aniga oo islaanta magaca masaajidka leh ee ay ugu deeqeen dhasheedii waa islaan eedeeya weliba eedde aad u dhow. marka kaftan dhowr jeer baanu ku kaftanay meelo badan oo kor bay noo qaadeen gabdhaha iyo wiilashaas. ilaahay waxaan u baryaynaa in ilaahay kor u qaado. xagga ilaahayna karaamo iyo sharaf iyo ayay ka helayaan. waa hooyadood marka kaftanada Soomaalida laga tago. waa awlaad khayr qabta ayaa ka muuqata inay labadii marxuum ee dhintay iska dhale. waxaan kaloo runtii ammaan labada waxaan aqaanay xaajiyadda ismaanan arag laakiin xaajiga ayaan arkay ama aan taariikhdiisa qayba ka ahaa ama aanu is aragnay waqtiyada adag ay ka mid ahayd ee Somaliland ay aad u saarayd dhibaatada iyo kurbida. dhowr iyo 90kii raggii Somaliland u hiiliyey ayuu ahaa xaajigu. runtii raggii ku dhiiraday ganacsi ahaan in berbera markii ganacsatadii kale oo dhan waxaa la yidhahdo insurance-ka ay ku xidheen. ninkii insurance-ka aqbalay wax kasta oo maraakiibta lagu sameeyo bixiyey si dadka wuxuu soo gaadhaan Ibrahim Dheero. lacagta markii la samaynayena raggii ka hormuudka ahaa ayuu ahaa isaga iyo juujuule siduu inoo sheegay maxamed xaaji ibraahim cigaal. isaga iyo juujuule ayaa hormuudka ahaa lacagta Somaliland 40 milyan oo dollar ee lagu soo sameeyey. weliba inuu isagu sii qoray baan malaynayaa ragga kalena lacagta u soo celiyeen wixii ku baabiyey. saasaan malaynay in kelmadda uu yidhi waa wixiiba waa maytiyo aad u haba laakiin kelmadda inuu cigaal nagu yidhi baan u malaynay. laakiin isaga iyo juujuule inay hormuud ka ahaayeen allah u naxariisteen labadaba ayuu noo sheegay. marka nin Somaliland saa ula soo dabaashay buu ahaa oo ummadda reer Somaliland ragga cagaha u soo dhigay ka mida oo maanta meelahaynu soo gaarnay hadday lacag tahay iyo hadday ganacsiga raashinka iyo dalkan in uu taayirka ganacsigu wareego raggii qaybta ka ahaa buu ahaa. xaajiyaduna kama liidana waa la wareejinaysa. xaajiyaduna waa la wareejinaysaoo haddaad aragto nin weyn gaaladu waxay tidhaahdaa haddaad aragto nin weyn oo waxa xaajiyadina waa ka dambaysaa. marka islaantii eeddaday qudheedu ma liidan. allah ha u naxariisto. aad iyo aad baan idiin salaamayaa. guul baan idiin rajaynayaa. kolle hawlo kalaan leeyahay. hadal jacayl uma soo kicin. faysal oo aan isagana abti u ahay yaa si adag iigu ballamiyey inaan ka soo qayb galo masaajidka. xaaskiisiiyo isagaba isku meel baa hooyooyinkood ka soo jeedaan. marka waxaa laga yaabaa taleex iyo inay ku dhasheen hooyooyin. faysal hooyadii taleex bay ka soo jeedaan. islaanta kalena waxay ka soo jeedaa awrboogays waa geeska kale ee Somaliland. waa dad helay uun dee ilaahunbaa isla doortay. ilaah baa isla doontay waayahan haddii ilaah baa qoray. marka aad iyo aad baan idiin salaamayaa.